dadka badankiisu waxay aaminsan yihiin in xayawaanka u xooga weyni uu yahay libaaxa ama maroodiga ama shabeelka sida dadka qaar kale ay aaminsan yihiin. laakiin arrinku saas waa ka duwan yahay. waa run oo libaaxu isagaa xayawaanaadka ama haddii aan si kale u dhigo duurjoogta u geesisan kuna dhiiran dagaalka ama dirirta cidda ay markaas ishayaan dad iyo duurjoogba. ooba tilmaamihiisa waxaa ka mid ah geesinimo, macangegnimo weheliso, sidoo kale inuu jecel yahay muuqashada iyo in cidaan isaga ahayni ay madaxa kor u qaado raafley iyo qoobleyba. wuxuu kaloo jecel yahay inuu isagu noqdo kan u xooga weyn oo guusha iyo libintuna dheegiisa ahaa. sidaa daraaddeed baa loogu bixiyey boqorka kaynta. arrintaasina waa geesinimadiisa ee ma aha awooddiisa. haddaba libaaxu ma aha kan u xooga weyn duurjoogta, laakiin xayawaanka u xooga weyni duurjoogta waa bahalka aynu u naqaano yeyga. dadka qaar waxay is odhan karaan yeygu waa daciif, hase yeeshee arrinku saad mooday ma aha, balse yeygu isagaa u xoog roon una awood badan duurjoogta gebi ahaanba. laakiin awooddaasi ma aha mid muuqata, maxaa yeelay waa xayawaanka u fulaysan, ama waxaa lagu tilmaami karaa xayawaanaadka ama kuwa duurjoogta ugu fulaysan oo aan haadka. haddii uu yeygu ogaan lahaa inuu yahay xayawaanka u itaalroon ama u xoog badan duurjoogta iyo khalqiga uu ilaahay abuuray, waxa uu dhibaato badan u geysan lahaa duurjoogta kuwa u xoog badan ama lagu tilmaamo iyo weliba bani aadamkaba. laakiin awooddaas waxaa ka sarraysata alle, oo alle subxaanahu wa tacaala baa inaga haya awooddiisa. haddaba daawade, inuu yeygu noqdo xayawaanka duurjoogta u xoog badan, siiba tiisa dhadig yadaaba ka daran ka labe, xataa aarka laga wada geegay ka xoog roon. sababta keentay maad i weydiin. alla ilaahe, dow baad su-aashaa u leedahay, anigana jawaab baad igu garowdaye aan gudagalo inaan kuu jawaabo. daawade, qodobadan soo socda ayaa keenay inuu yeygu noqdo xayawaanka ama duurjoogta ka un xoog badan. waata koobaade, horta yeygu ma cuno bakhtiga, halka uu quuto ugaadha uu isagu markaas uu gacantiisa ku dilay iyo hilibka freeshka ah, si kasta ay gaajo darani u hayso. sidoo kale yeygu marka uu ugaadhsanayo waxa uu ugaadhsadaa ugaadhata u xoog badan, una shilis ah, una buuran. waxa kale oo sababa yeygu inuu noqdo xayawaanaadka ka u xoog badan inuu alle subxaanahu wa tacaala uu yeyga ugu deeqay uuna siiyey dareeme ureed oo aad u xoog badan oo aysan lahayn duurjoogta iyo khalqiga uu ilaahay abuuray mid la mid ah. taas daraaddeed buu yeygu ku uriyaa ama ka uriyaa ugaadha masaafo aad u fog. intaa keliya kuma ekaysane, yeygu ugaadha iyo waxa uu markaa cunayo waxa uu ka bilaabaa ama uu ka cunaa halka u wanaagsan iyo cadka u fiican, sida beerka, wadnaha, keliyaha iyo wixii la mida. kadib ayuu hilibka intiisa kale cunaa. sidoo kale waxaa ka mid a awooddiisa waxa sababay inuu leeyahay awood aragti oo aad u xoog badan, halka uu meel fog wax ka arki karo iyo ugaadha marka uu damacsan yahay. iskaba daaya tilmaamaha indhihiisa waxaa ka mid ah inuusanba isku qaban. kaaga si darane, yeygu waxa uu seexdaa indhihiisa oo kala furan, halka uu ka arki karo khatarta markaa ku soo wajahan isaga oo hurda. haddaba daawade, tilmaamahaas iyo kuwo kale aanan xusin ayuu yeygu ku noqonayaa kan u xoog badan una itaalroon duurjoogta alle abuuray, laakiin uu yahay xayawaan fulay ah. maadaama aysan isku xidhnayn fulaynimadu iyo geesinimadu, oo aad arki karto qof xoog weyn laakiin fulay ah, ama qof geesi ah laakiin aanan tamar saasa lahayn. dhinahaas ayaan ku soo afmeeranaa qodobka aan rabay inaan kaga hadlo yeygu inuu yahay xayawaanka duurjoogta kan u xoog badan iyo gebi ahaanba uunka uu alle subxaanahu wa tacaala abuuray. daawade, haddii aad daawatay fiidiyowgan hanaga ilaawin subscribe-ta iyo in aad noo soo saartay waad mahadsantahay.